habeen wanaagsan Layaabka TV ayaad naga daawanaysaa qodobada caawa warka aan idinkugu hayno waxa kamid ah qodobo cusub oo ka soo baxay kulankii Axmed Madoobe oo uu la qaatay taliyaha ciidamada Amisom ee Soomaaliya saddex ruux ayaa ku geeriyootay gaari lagu rasaasiyay duleedka Balcad hadaba yaa rasaasiyay gaarigaasi wafdiga igad oo kulan xasaasi ah la yeeshay guddiga doorashooyinka Jubbaland waxaad kaloo caawa warkeena aad ku daawan doontaan wasiir Jamaal oo kulan adag la qaatay hay'adaha caalamiga ah ee ka howlgala dalka maxkamadda ciidamada qalabka sidana waxay maanta rag loo heestay dilal iyo qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho ay ku fulisay xukunkii ay ku riday ee toogashada ahaa dil ka dhacay xaafad ka tirsan magaalada Muqdisho dibaddana waxa ka mid noqon doona tirada dadkii ku dhintay weerarkii Mareykanka oo sii korortay intii aad daawaday waxay ahaayeen qodobadii warkeena habeen kuweedu igu door corona ku soo dhawow warkii oo intaasi ka faahfaahsan haddii aad nagu cusub tahay nala saaxiib oo subscribe saar channelkan hana hilmaan inaad gambaleelka furato habeen wanaagsan soo dhawow qodobadii aad maqashay oo faahfaahsan saddex ruux ayaa ku geeriyootay gaari lagu rasaasiyay duleedka Balcad wararka laga helayo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in deegaan duleedka ka ah degmadaas lagu rasaasiyay gaari ay sarnaayeen dad shacab ah isla markaana rasaasta ay ka dhalatay khasaaro iskugu jira dhimasho dhaawac gaariga la rasaasiyay ayaa ka ambabaxay magaalada Muqdisho nuuciisana wuxuu ahaa Nooha gaariga ayaa ku sii jeeday degmada Balcad hase yeeshee waxa la sheegay in kooxo burcad ah ee rasaas la dhaceen xil gaariga uu mariyay deegaan lagu magacaabo Masalla oo u dhow degmada Balcad deegaankaasna wuxuu u dhaxeeyaa magaalada Muqdisho iyo degmada Balcad dad ku sugnaa deegaanka Balcad ayaa ay xaqiijiyay in gaariga la rasaasiyay ay ku geeriyoodeen gabar kamid ahayd rakaabkii gaariga saarna laguna magacaabi jiray Safiye Maxamed Xaaji darawalkii gaariga kaxeenayay oo magaciisa lagu soo gaabiyay Asad iyo nin oday ahaa oo gaariga saarna qaar kamid ah shacabka degmada Balcad iyo ehelada dadka rasaastu ay haleeshay ayaa gurmad u sameeyay gaariga la rasaasiyay iyagoona goobta ka qaaday meedka marxuumiinta ku dhintay gaariga la rasaasiyay iyo dadkii ku dhaawacmay kooxihii burcadka ahaa ee ka dambeeyay rasaasta lagu furay gaariga ayaa la sheegay in ay goobta isaga baxsadeen waxaana falkaas weli ka hadlin mas'uuliyiinta maamulka degmada Balcad iyo kan Shabeellaha Dhexe xiriiro aan la sameynay way ka gaabsadeen in ay falkaas ay ka hadlaan warka habeen ayaa weli daawanaysa waxa qodobo xasaasi ah laga soo saaray kulankii dhexmaray madaxweyne Axmed Madoobe iyo taliyaha ciidamada Amisom ee Soomaaliya magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland waxaa kulan ku yeeshay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madoobe iyo taliyaha guud ee ciidamada Amisom Tigaabu Yilma oo maanta gaaray magaalada Kismaayo waa taliyaha guud ee ciidamada Amisom kulanka ayaa waxa diiradda lagu saarayay sidii loo sugi lahaa ammaanka magaalada Kismaayo inta ay socoto doorashooyinka Jubbaland isla markaana ay ka wada qayb qaadan lahaayeen ciidamada Amisom iyo kuwa maamulka Jubbaland si ammaanka magaaladaasi oo xaqiijin lahaayeen inta lagu guda jiro doorashada la filayo inay ka dhacdo maamulka Jubbaland madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa saxaafadda la hadlay waxa uuna u sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen sidii la iskaga kaashan lahaa ammaanka isla markaana si midaysan loogu qaadi lahaa howlgallo cusub ee deegaanada Jubbaland laga sameyn doono waxa uu hadalkiisa ku sii diray in ciidamada Amisom maamulka Jubbaland ay u sheegtay inaysan wax faragelin ah aysan ku sameyn doonin doorashooyinka Jubbaland isla markaana marna aysan shaki gali doonin wada shaqeynta Jubbaland iyo ciidamada Amisom ka dhaxaysa marka laga soo tago hadalka madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland wali wax wararka ma soo bixin dhinaca taliyaha guud ee ciidamada Amisom Master Tigaanbu kulankii oo la qaatay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madoobe wali warka habeen ayaa daawanaysa markana Muqdisho rag loo heestay dilal iyo qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho oo maanta toogasho lagu fuliyay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saakay oo isniin ah waxa xukun dil toogasho ah ku fulisay laba dhalinyaro ahaa oo lagu eedeeyay in ay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab oo dagaal adag kula jiro dawladda Soomaaliya labada nin ee xukunka dilka ah lagu fuliyay ayaa waxa lagu kala magacaabi jiray Canshuur Cismaan Abubakar Cumar 23 jir ah iyo Maxamed Cali Borow Aadan oo 25 jir ah kuwaas oo ku eedeysanaa inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab isla markaana ay ka qayb qaateen weerar iyo qaraxyo laga fuliyay magaalada Muqdisho si gaar ah xubnaha la togtay ayaa waxa lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen weerar lagu dilay 27 bishii Sebtembar sanadkii 2017 xogayihii ururka haweenka qaranka
marxuumad canab cabdulaahi xaashi kaas oo ka dhacay isgooska Fiiroma ee degmada Xamarweyne sidoo kale waxaa lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen rasaas lagu furay gaari ay la socdeen qoyska reer Xasan Cabdi oo kamid ahaa maamulka shirkadda Daabshiil iyo weerarkii qaraxa ku bilowday ee lagu qaaday sagaalkii bishii 11aad 2018 hotelka Saxafi iyo qaraxii ka dhacay 22kii bisha 12aad 2018 tiyaatarka qaranka ee magaalada Muqdisho sida ay horay u sheegtay xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya labada xukunka dilka lagu filay ayaa horay maxkamadda ciidamada qalabka sida ugu xukuntay dil toogasho ah hase yeeshee racfaan ayay ka qaateen balse mar kale ayay xukun dil ah ku riday maxkamadda ciidamada qalabka sida saakay ayaana lagu fuliyay dilkii toogashada ahaa ee maxkamadda ay ku riday guud ahaan daawade warkii aad ka daawanaysay Layaabka TV caaw intaa ayuu nooga dhan yahay haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar hana hilmaamin inaad gambaleelka furato tan iyo kulanti dambe nabadgelyo